بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني وحاومانتا كقيب قلي كلن رئيس الوزراء الصومالية مدن محمد حسين روبلة iyo madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya oo weheliyo maamulka gobolka Banaadir ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho kulankaasi waxa looga hadlay xaaladda dalka uu marayo waxa ay soo dhaweeyeen oo bogaadiyeen wakiilada beesha caalamku heshiiskii ay gaareen madaxda Soomaaliyeed ee ku saabsan doorashada uu dalku u jihaystay kulanka ujeedkiisu waxa uu ahaa oo looga hadlayay doorkooda inay ka qaataan beesha caalamku maadaama ay waqti badan soo taageerayeen Soomaaliya oo marxalado kala duwan soo martay arinta doorashadana ay waayidii dambe ay laftarkooda culays badan ku haysay horana ay warmurtiyeedyo iyo Twitter uga soo saari jireen haatan in maadaama heshiis la gaaray doorasho oo dalku uu doorasho u jihaystay waxa ay madaxda Soomaaliyeed kala hadleen beesha caalamka in iyagana loo baahan yahay doorkooda inay qaataan si heshiiska madaxdu ay saxeexday oo hirgalo waqtigiisa si looga dhabeeyo oo dalku doorasho u jihaysto si loo yareeyo caqabadaha ka iman kara dhinacyada taageeradooda dhaqaale iyo arrimaha farsamo dhamaanna waxa uu shirkaasi ku soo dhamaaday guul iyo wanaag